بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ما أنتنا واحد دقندنا سورة الانفطار يوحي كتير هجاد إن نكسو صارنا أي بدنتهي بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسنك ما دام نكسو شرحنا السورة دي هراء وحين نكون بلا بدونا سورة دي بلو جيدة وحاوه رأي همزة وحانا سارن كهوس دو أما كسرة وحاكو حيقى ذال إيا ألف waxaa loo akhriyaa dhammaan saddexdoodaba inkastoo hore usoo sharaxnay in badan idaa markaan waxba lagu xigsiinaynin idaa oo mad bil alif ugu dambeeya daalka imika maadaama uu ku xigo kelmad kale ku xigto kelmadan iyo kelmadan marka la isku qabanayo waxaa laga boodayaa hamsadaasi hamsatul wasligi baa laga boodayaa waxaa lagu akhriyaa daalka iyo siinka la isku akhriyaa waxaa la odhanayaa halkan imika daalka markaad ku akhrido siinkana aad shado ida sa oo fadxaad siiso ida samaau halkaa markaad madka jiido waxaa ku xiga hamzana wuxuu ka mid ahaa sababihii laba sababadood baa midka dhaliya baan nidhi sababta koowaad waxa weeyaan hamza sababta labaadna waxa weeyaan sukuun labadaas sababood baa madka keena marka la helo xuruufulmad oo ah yaa iyo waaw iyo alif kuwaas waa xuruuftii madka marka saddexdaa la helo ay ka daba dhacaan ama hamza ama sukuun ayaa mad dhashaa marka imika halkan waa la jidayaa ida samaau baa loodhanaya halkaasi waxaa saaran hamze uu saaran yahay godaal ama dama marka isku akhriyaysa waxaa odhanaysaa saddexdooda intaan labadan kelmadood ida samaau intaanaad ku xidhinta kale laakiin haddaad doonayso inaad ku xidho weedha kale hamzahaasi waxaad ku akhriyaysaa nuunkaasi ood qunaynaysaa maadaamuu yahay xaraf min xuruuf alikhfaa oo ka mid yahay xukunkii ikhfaaha ee fa ka daba dhacday oo waad qarinaysaa nuunkii waxaad ku dhex qarinaysaa fa'dii ida samaau meeshii fa'da sii tag qunahana laba xarakato ku akhri oo ku hay ida samaau fatarat fa'da iyo to'da iyo ra'dana waxaa saaran saddexdoodaba xaraka ah fadxa sii ta'da ugu dambaysana waxaa saaran sukuun inaad muujisid hamsihii ama aad hawo yar soo saarto marka ugu dambaysa ida samaau fatarat wa idaa ayuu ahaa asalkeedii hase yeeshee daalka iyo waxaad ku dhifanaysaa laamta halkaa ku jirta ee sukuunta saaran yahay wa idal kawa markaad kawa akhridid waxaa ku xiga alif halkaasi alifaa ku jirta aliftaasi wanaad wowga ku taagtaa oo tirahdaa kawaa wa idal kawaa waaw fadxa iyo alif waxaa la akhriyaa waa halkaa iminka waa baa ku jirta wa idal kawaa markaad kawaa akhrido alifta iyo waawga iyo alifta isku akhrido kaafka waxa saaran hoos dhow iyo ba'dana dama saaran wa idal kawaakibu ba dama saaran yahay ba'da damuhu saaran yahay waxaad ku akhridaa nuunkaasi halkaa ku dhex jira maadaama uu ku jiro ikhfa oo ta ka daba dhacday oo isku dhex qari wa idal kawaakibunta meeshii ta'da sii tag adoon carabkaaga ku dhejinaynin dhinxanaga sare oo aan ta akhriyaynin halkii ta'da ku yar hoosteeda carabka ku haya laakiin markaad akhriyayso ta'da qunaha dhamayso wayna ta ku boodaa oo tiraahdaa wa idal kawaakibunta ha odhanin carabka ha ku dhejinin meeshii ta'da markaad qunaha samaynayso oo haran wa idal kawaakibun nuun buu noqonaya markaad ku dhejiso carabka dusha sare ee dhenxanaka sare wa idal kawaakibun tatharat ta'da iyo tha'da iyo ra'dana fatxa saaran ta'da ugu dambaysana sukunsii wa idal kawaakibun tatharat wa idal bixaaru fujirat jiimka halkaa ku jira waxaa saaran qalqala markaa muuji fujirat wa idal qubuuru halkaa waxaa ku jira baa madu bilwaaw buu raadana dambasi wa idal qubuuru bu'thi baa dama iyo cayn sukuun tha'dana hoos dhama saaran bu'thi raadana fadxa saaran bu'thira تأذن سكون سي بعثرت علمت عين يلام يميم يتا ليه واحد كلكم مجرين فتحي سكون نفس بها أصل كيسو تنوين تمك الآخرية
oo aan kusoo baratay higaadii san sin sun laakiin imaka siinkan waxa ka dambeeya miimkan marka tanwiinta iska daba dhacaan waxaa la yidhaahdaa idqaamkan markaas idqaam ku sameeyo labadii xaraf quro kasoo qaadoo shidan waxdaa u akhridaa calimat nafsum ma siinka damo qura akhri miimka ku bood laba xaraka ku hay oo qunana samee cod ka soo baxaya shanqaroorkaaga sare nafsum ma qadamat wa akharat yaa laakiin jiidoo mad baa dhashay afar ka dhig yaa ayuhal haadan iyo laamka isku akhri yaa ayuhal markaad qunaha akhrido siinkana alifaa ku taagan ayuhal insaanu yaa ayuhal insaanu nuunkana dama sii maa garaka hayn iyo ra-da la shad maa garaka birabbika kaafkan iyo laamkana isku akhri birabbikal markaad bacda shado birabbika alkariim mimka ra-dan waxa saaran madbilyaa alladii khola laamkan waxaa ku dhex jira laba xaraf oo culculus oo khoda iyo qoofka ah hadduu culus yahayna labada dhinac waxa ka saaran wax culus yuu kaa weynan isaguna kaa cuslaanin isaguna istifaal ka dhig oo khafiif ka dhig kho markaad akhriyad weyneyso khodi ad laamkana yarayso kho le qoofkana weyne kho le qo khalaqo kaafkana fadxasi khalaqaka fasawaaka waaga shad alifna ku taag fasawaaka facadalak kaafkana sukuun ugu dambeysiyey facadalak fi ayuu ahaa laakiin madsi fi ayi iyo dhibma laha shad iyo waxa saaran hoos dham suuratin ayuu ahaa asalkiisii laakiin tanwiinta waxaa ka daba dhacday miim oo xaraf idqaamka ka mid ah xaraf quroo shadan ka soo qaad suuratin maa shaa rakabak kaafka shad baa saarane rakabak كلا بل تكذبون ذلك نشد بعد نمد بالواو اخري تكذبون بالدين بعد نيو حسكو اخر ذلك كا كجرا بالدين او ذلك نيو حسار مد بالياء نون كان ugu dambeysay sukunsi بالدين وان عليكم لحا لام iyo xa iyo mad بالالف لحافي ضعضا iyo faadan ba waxa saaran hoos dhow لحافظين ضين كراما ama kiraaman labadaba waad akhri kartaa laakiin maadaama miimkan ka dambeeyo kaaf qunaha la siinaya waxa dhashay xukun yiraahdo ikhfa miimkan tanwiinta saaran tanwiinta markuu daba dhacdo kaafka waa xukunka keenay marka isku dhex qariyo waxaad ka dhigtaa sidii wax isku dahaarayo oo kale labadooda kiraaman halkii kaafka siitay kaafnaha akhriya marka hore markuu qunuhu dhamaado kaafka akhriyaysa kiraaman kaatibiin kaafkana alifaa saaran iska ilaali oo ku taag kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun ina alabraara iyo ba sukun saaran tahay ina alabraara lafii naciim wa ina marka nuunkaa shideen waxaad ku akhridaa laamkaasi wa ina alfujaara fa'dani dama jiimkana shad fujaara alifna ku taag wa ina alfujaara lafii jaxiim jiim iyo xa baa isdul saaran markaan isku fiirso jiim dabeetana waxa lagu xogsiiya dana xa jiimka dhibicdiisiiba xaggaasa la dhigay xadina dhibic malaha u fiirso jiim iyo xa lafii jaxiim yaa iyo sood yas laam fadxa iyo waaw sukuun low yaslownaha yawma miimka waxaad ku akhridaa daalkaasi yawma addiin wamaa hum ha iyo dama hum
وما هم عنها لما واحد سو اخر جادي صبرتي الف بادي فتحه كسره ضمه عنها باء كسره بغاء غين فتحه الف يمد بغاء همزه ضمه باء همزه كسره باء كسره بغائبين بعد ما واحد صارين هوس دو يا با كخيغتا وا مد بالياء بغائبين وما مد هذا الشيء وما قلقلة راء فتحة يو ألف صغيرة أدراك وما أدراك ما يوم ممكن يهكا دالك اسكو اخري يوم الدين دين ثم ما مد بعد الشيء ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس سين كان يلام كاس واخرما نفس لنفس شيئا oo hamsaha tawiinta ku jirta halkaasi waxaad u bedelaysaa markaad ku istaagayso oraynu soo sharaxnay alif markaad ku istaagayso linafsin markaad qunahan akhrido qunaha halka ku jiray shiinka isku ila akhrido wuxuu noqonayaa ikhfa waxaad oranaysaa linafsin shay'a u fiirso tawiinta halka ku xigta waxaanu u bedelay alif shay'a haddaad doonaysa inaad isku akhrido kelmadan iyo kelmadda isku akhridna tanwiinta iyo waawga waxaa dhashanaya markaa idqaam baa dhalanaya waawgii kuwii qunaha lahaa waxaad oranaysaa linafsin shay'an wa waawgana laam ku dhufo walamru yawma idin buu ahaa asalkiisa tanwiin baa saaran laakiin tanwiintan iyo laamkan isku dhex idqaam يومئذ لله إلهي وحن كبريا إن شاء الله تعالى إن إلهي نقابل عمل كينا صوبا قيامنا هنا إنه شفيعة قاضي قرآنك انت ندونك كن الله هنا إلهي نقدر قدرك قرآنك الله صاحبك إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.